kusoo dhawaada kubadda cagta Tube iyo xog ku saabsan guusha Liverpool iyo kulankii muhiimka ahaa ee wajaheen kooxda kubadda cagta Tottenham. Liverpool ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay Tottenham ciyaar ka dhacday garoonka Wembley, waxayna ahayd mid kamid ah tijaabooyinkii ugu adkaa ee uu maray tababaraha reer Jarmal ee Joojin. Kulankan Tottenham ay ka maqnaayeen xidigo muhiim ah ee ugu horeeyay goolhayahooda Hugo Lloris iyo sidoo kale Dali Ali ayaa awoodi waayay in Liverpool xitaa hal dhibcood ay ka helaan. gool u dhaliyay Joojin iyo gool uu keenay Roberto Firmino ayaa looga adkaaday kooxda kubadda cagta Tottenham oo hal gool la meel u dhaliyay. Hadaba ciyaartaas waxaa laga diiwaan galiyay xog badan oo ku saabsan Liverpool iyo sidoo kale natiijadeeda ciyaarta. xaqiiqda ugu horeysa ayaa ah Joojin ayaa markii ugu horeysay gool u dhaliyay kooxdiisa isagoo aan ku ciyaaraynin gurigiisa ama kooxda uu u dheelayo garoonkeeda. 58 kulan kadib ayuu qabtay shaqadan. sidoo kale Liverpool ayaa ka gudubtay mid kamid ah tijaabooyinka bisha September, waxa uu xigta PSG oo la ogaan doono waxa ay kala kulmi doonto. sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ciyaarta waxa boqolkiiba boqol ay isku dayeen inay xakameeyaan ororadka kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Spurs ayaa u baahan in natiijada ciyaartan ka sokow ay ka faa'iideystaan. Spurs ayaa u baahnaa natiijada ciyaarta ka sokow maqnaanshiyaha ciyaartooyda Tottenham. ma jirin ciyaaryahan ka fursad abuuris badnaa James Milner oo 3 fursadood abuuray. Liverpool ayaa markii ugu horeysay 5 kulan ee ugu horeysay horyaalka Premier League badisay tan 1990 ilaa 91. West Ham 4 kaga badiyeen kulankoodii koowaad, Palace 2 kaga badiyeen, Brighton 1 kaga badiyeen, Leicester 2 gool iyo gool kaga badiyeen. maantana Tottenham ay 2 gool iyo gool kaga adkaadeen. Tottenham iyo Liverpool ayaa iska dhaliyeen goolasha ugu badan markay is wajahayaan, waana 152 gool. waxay ka badan yihiin Arsenal iyo Everton oo 151 gool iska dhaliyeen. waad ku maasan tahay daawashada warbixintan. fadlan subscribe sar channelka kubadda cagta Tube, like muuqaalkan lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid.